dhinaca baraha bulshada iyo dhexda kaga jirnaya arrimaha Soomaaliya haddii aynu isla eegno saacadihiinu ka soo gudubnay qodobo kala duwan aynu idin soo gudbin doonaa toogasho saaka lagu fuliyay rag ka tirsanaa al-shabaab oo dilal geystay sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo si kulul looga hadlay dhacdadii lagu dilay dhalinyarada sidoo kale waxaad maqli doontaan haddii rab raali ka noqdo khasaare ka dhashay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho faahfaahinayna kaga haynaa waxaan sidoo kale soo gudbinaynaa haddii ay boona raali ka noqdo dowladda Soomaaliya oo joojisay qaadashada warqadda caddeynta baaritaanka COVID-19 waxaan ku horeynaynaa qarax markaasi nooca miinada dhulka lagu aaso isla markaana joogtiisa laga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ee waxa uu ka dhacay goor dhaweed degmada Daynile waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in qaraxa lala beegsaday gaari nooca dagaalka ee loo yaqaan Cabdibilaha oo marayay laamiga dheer ee Daynile gaar ahaan halka loo yaqaano ceelka Efis sidoo kale goobjoogayaasha ayaa waxay sheegayeen inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac oo gaaray ciidamada gaariga saarna ay dad shacab wadada marayay warkan ayaa waxay intaa ku darayaan in ciidamada qaraxa lala beegsaday ay fureen rasaas fara badan waxaan dad ku dhaawacmay qaraxa la geeyo goobaha caafimaad ee magaalada Muqdisho si loogu daweeyo halkaasi iyada oo goobta qaraxu ka dhacay ay gaareen ciidamo isugu jira military iyo sidoo kale booliis kuwaasi oo baaris wada waxa uu imaanaya qaraxan muddo ku dhow 7 oo laba qarax ay gilgileen magaalada Muqdisho kuwaasi oo khasaare lixaad ay u geysteen shacab kor u dhaafay 300 kuwaasi oo ku dhaawacmay halka in ka badan 100 ruux ay ku geeriyoodeen dhinaca kalena haddii wararka amniga aynu ku nagaano maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka magaalada Muqdisho xukunkii dilka toogashada ah ku fulisay laba rag oo lagu eedeeyay inay ka tirsanayeen al-shabaab isla markaana ay dilal ka geysteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya labada rag oo lagu kala magacaabi jiray Cumar Aadan Maxamed Cabdulle Axmed Muumin ayaa lagu helay in Muqdisho ku dileen taariikhda markay ahayd 12 bishii tobnaad sanadkii 2019 Cabdullaahi Maxamed Hilowle oo ka tirsanaa dowladda hoose ee Xamar iyo Cali Cabdulle Maxamed oo ciidamada military ka tirsanaa 13 bishii 11 2019 war ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Cumar Aadan Maxamed iyo Cabdulle Axmed Muumin ay al-shabaab ku kala biireen sanadihii 2014 ilaa 2018 iyagoo ku kala sugnaa tuulooyinka hoos yimaada magaalooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose iyo degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kale labada rag ayaa waxay maxkamaddu sheegtay inay qayb ka ahaayeen weerar ka dhacay deegaanada degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose hase yeeshee markii dambe loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho oo ay dilal ka fuliyeen ugu dambeyntii 16 bishii 12 19 waa sanadii 2019 aan iraahday ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ku riday xukun dil toogasho ah Cumar Aadan Maxamed iyo Cabdulle Axmed Muumin iyadoo ugu dambeyn xukunkii dilka lagu fuliyay sida warbaahintu sheegay ku-xigeenka xiraalyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Maxamed Cabdullaahi Khaliif waa toddobaadkii labaad oo xiriir ah oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay xukun dil toogasho ku fulinayso rag ka tirsan al-shabaab oo lagu helay in ay dilal ka geysteen gudaha magaalada Muqdisho dhawaan rag ka tirsan ciidamada macawisleyda gobolka Hiiraan waxa ay weerar ku qaadeen qoys ku sugnaa degmada Aboorey ee degmada Buulaberde ee gobolka Hiiraan iyagoo dilay mid ka mid ah dhalinyaradii qoyska mid kalena dhaawacay kuwaasi oo uu dhalay sarkaal ka tirsan al-shabaab hase yeeshee maalmo kadib waxaa falkaasi si kulul looga hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan isagoo sheegay in isagu horey u sheegay in la beegsado hogaamiyaasha iyo rag ka tirsan al-shabaab balse ay tahay qalad in la dilo dad shacab waxa uu sheegay in dambi tahay in la dilo xaasaska iyo carruurta shabaab ee aan dagaalka ku jireen balse la beegsan karo qoriyaha ragga wata ee ka tirsan ururkaasi waxa uu yidhi dambigu anigu aan la imaado anaa iska leh wiilka dambiga la yimaada hadduu qaangaar yahayna isaga ayaa iska leh taasi sooma cadda buu yidhi dambiga anigu galay wiilkayga ilaahay ma u ciqaabaya waa maya sabab loogu ciqaabaya ma jirto buu yidhi ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa digniin u diray dad caadaystay falalka dilka shacabka isagoo iska fogeeyay in isaga lagu dabaqo dhacdada labada wiil ee walaalaha ahaa mid lagu dilay mid kalena lagu dhaawacay waa hagaag bal isla wararka markaasi la xiriira Soomaaliya ayaan dhexda kaga jirnaaye haddaba wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya waxay joojisay qaadashada warqadda caddeynta baaritaanka caabuqa COVID-19 taasi oo looga qaadi jiray cid kasta oo ka dhoofaysa garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay
in dadka usoo safraya soomaaliya aan looga baahnayn inay la yimaadaan warqadda caddeynta baaritaanka covid-19 ee PCR iyo sidoo kale rapid certificate loo yaqaano. sidoo kale wasaaradda caafimaadka waxay sheegtay in dadka ka dhoofaya soomaaliya looga baahan yahay inay iska hubiyaan u hoggaansanka shuruudaha iyo habraacyada wadamada ay u socdaan ee la xidhiidha corona. go-aanka wasaaradda caafimaadka soomaaliya meesha ka saaraya lacago ee khidmada ah oo ay dadka safarka ku bixin jireen qaadashada warqadda baaritaanka covid-19. wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxay sidoo kale ku dhiirigelisay muwaadiniinta inay qaataan talaalka covid-19 kana ilaaliyaan naftooda iyo kan eheladooda khatarta caabuqan. khidmada lacageed ayaa lagu soo rogay ama lasoo rogay sanadkii 2020 kadib markii dib loo furay isku socodka duulimaadyada kadib markaasi xayiraado covid-19 oo ay dowladaha soo rogeen, iyadoo waddan kasta uu qaatay in dadka dibadda uga imaanaya ay soo qaataan warqadda baaritaanka corona, taasoo qayb ka ahayd xakameynta faafitaanka cudurka dilaaga ah ee covid-19 loo yaqaanay. haddaba warbixinadii ayaan bartanka kaga jirnaa saaxiibada hawada nagala socdaay. dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha masar cabdifataax al siisi ayaa kulan ay ku yeesheen dalka Nigeria waxa ay kaga wada hadleen howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab ee ka socda soomaaliya, abaaraha iyo weliba sidii xal loogu heli lahaa cunto yarida. sida lagu sheegay war-saxaafadeedkan ka soo baxay xarunta madaxtooyada soomaaliya, madaxweynaha masar waxa uu ballan qaaday in soomaaliya ay ka caawin doonaan dhanka cunno yarida si kaalmo loo gaarsiiyo dadka ay abaartu saameysay. haddaba war-saxaafadeedkan ka soo baxay xarunta madaxtooyada ayaa sidan u dhignaa: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan duceedyo kala duwan kula yeeshay magaalada algeria ama aljas dalka algeria madaxweynaha dalkaasi masar mudane cabdifataax al siisi. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uga warbixiyay dhigiisa dalka masar howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka iyo dadaalada ay dowladda soomaaliya ugu jirto xasilinta deegaanada lagu xoreeyay al-shabaab si dadka ku nool ay u helaan adeegyada asaasiga ee bulshada. waxa uu xoojiyey muhiimadda ay leedahay in soomaaliya lagu taageero dagaalka ay uga soo horjeeda al-shabaab. madaxweynaha jamhuuriyadda sidoo kale kala hadlay madaxweynaha masar saameynta daran ee abaaraha isbeddelka cimilada ay u geysteen shacabka soomaaliyeed, taasi oo sababtay in tiro badan oo shacab ah ay ku barakacaan deegaanadii ay ku noolaayeen kuwa u baahan gargaar bini'aadanimo. dhankiisa madaxweyne cabdifataax al siisi ayaa soo dhoweeyey guulaha ay dowladda soomaaliya ka gaadhay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo nafahurnimada ay muujiyeen shacabka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada xoogga dalka si ay isaga dulqaadaan al-shabaab. waxaana uu muujiyey sida ay diyaar u yihiin taageero buuxda oo ay la garab istaageen dowladda iyo shacabka soomaaliyeed. madaxweynaha dalka masar cabdifataax al siisi oo ballan qaaday in soomaaliya ay ka caawin doonaan dhanka cunayarada si kaalmo loo gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen. waxa uu intaa raaciyey in shirka socda ee cimilada ee ka dhacaya masar ay cod ugu noqon doonaan soomaaliya sidii uu caalamka ugu baraarugi lahaa saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeeshay soomaaliya ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee soomaaliya. waagaag inta ayaan kaga gudbaynaa macluumaadkii kala duwanaa ee soomaaliya aynu idiin soo gudbinaynay saaxiibada nagu